shirkadda Cadceed Group dharka ay dalka keenaan waxa raga dhameystiran quruxna loo daa. habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda kulmiye caawa ay idiin heeso waxa ugu waaweyn dhimasho iyo dhaawac ka dhashay bamgacmeed caawa lagu weeraray xaafad ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ruux dhaawac ahaa oo lagu dhex dilay isbitaalka Keysanay iyo xiisad dilkaasi ka dhalatay Somaliland iyo maamul goboleedyada qaar oo ka soo horjeestay go'aankii dawladda Soomaaliya ee wakiilka qaramada midoobay midowga Yurub oo si kulul u cambaareeyay hoobiyaashii lagu weeraray xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho wasaaradda ganacsiga Soomaaliya oo dhisaysa xarunta adeegga ganacsiga dawladda Kenya oo sheegtay inay dileen ku dhawaad 10 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab iyo dagaal ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay dalka Mali Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad waa Arbaco taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 2 bisha koobaad ee January sanadka 2019 caawa waxaa noo waramaya Cabdilweli Abubakar Cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay Cabdullaahi Xuseen Canshuur habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada warka aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay bangacmeed caawa lagu weeraray xaafad ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir gaar ahaan laanta horseed ee degmadaasi waxaa caawa lagu tuuray bamgacmeed khasaare badan dhaliyay bamka caawa lagu tuuray laanta horseed ee degmada Yaaqshiid waxaa ku dhintay 5 qof oo ka mid yahay askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya halka 4 kalena ay yihiin dad shacab ah sidoo kale bamka caawa lagu tuuray laanta horseed ee degmadaasi waxaa ku dhaawacmay 2 qof oo shacab ah kadib tuuristii bamka kadib waxaa halkaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska degmada Yaaqshiid ayagoona baaritaano ka wada halkaasi warkaasi wixii ku soo kordhay dhageysta waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadan soo socda ruux dhaawac ahaa ayaa lagu dhex dilay isbitaalka Keysanay iyadoona ay taagan tahay xiisad ka dhalatay dilkaasi Cabdullaahi Xuseen Canshuur oo warka caawa soo saaray ayaa faafahinta warkaasi noo hayay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya arrintan ka dhacday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaa markii hore la sheegay in xiisadan ay ka dhalatay dhul la isku haystay oo ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaana ka dhashay israsaaseen dhex martay 2 dhinac oo iyagu ka kala socday ehelada ama qoyska isku haystay dhulka ku yaala degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir dhaawacyada iyo dhimashada ka dhashay halkaasi ayaa waxaa la sheegay in loola cararay isbitaalka Keysanay ee duleedka magaalada Muqdisho markii intaasi ay dhacday ayaa waxaa la sheegay in koox ka mid ah kooxihii ku dagaalamay guriga ama booska la isku haystay ay si xoog ah ay ku galeen gudaha isbitaalka Keysanay sidaasina ay u dhameystireen ruux dhaawac ahaa oo markaasi la doonayay in gudaha loo sii gudbiyo waxaana la sheegay in weli aanan si rasmi ah loo helin xogta ku aadan ciddii ka dambeysay oo aanan gacanta lagu soo inkastoo uu dagaal kale oo dhex maray kadib markii ciidamada ilaalada isbitaalka isku dayeen inay ka hor istaagaan markii falka uu dhacay kadib ayaa goor sii horeysay waxaynu qadka telefoonka aynu kula hadalnay mid ka mid ah goobjoogayaashii falka dilka ah ee gudaha isbitaalka markuu dhacayay joogay maanta abaara oo saadi door aan bilirno meesha waxa ka dhacay qolo ka tirsaneed oo maanta meel ka tirsan laakiin ciidamada dawladda Bariiska oo tuutaha kulli bismeedaya isbitaalka wuxuu ku soo jiray staafkii kadibna qaybta oo small outida la yiraahdo oo daawac cusub lagu qabtay waxay joogteen nin marka hore dhaawac hayo isbitaalka la keenay oo kulli ayaga daba joogeen isbitaalka dadka la keenay laba ay ahaayeen oo mid hore u soo dhintay iyo mid dhaawac marka midkii dhaawac ahaa dib u sii dhameystiran saacadana ku hadlay hadda ninkii waaga meesha laga qaadin oo small outida ayuu yaala wallahi marta isbitaalkana lagu dhameystiray laakiin dadka hadallo badan isku dhex wadaan oo dad isku haysto way qaara dhahay qaarna xilliin dad oo qabiil iyo ana qayb ka dhaxaysa qaara dhahay waayahay halka uu falku ka dhacay oo markii hore rasaastu ay ka soo bilaabatay waxa la sheegay inay tahay secondary meesha loo yaqaan oo Kaaraan ka tirsan
waa taqaanaa isbitaalka weyn ee kiisanay wax ugu ah lama ogolo kulli baa kor ku ahaataba laakiin ciidamadii staafka ahayo aad dareemi karto xilli kala wareegnayna iyadoo 6 saac markay ay tahay waxaa la sheegay in ciidamada ciidan badan ay yimaadeen oo dadka ilaa 2 muddo camal ay ku socdeen qarna staafkii ay qaydo u qabteen. waxaa gudaha cisbitaalka iyo sidoo ku teedsanba iminka ka taagan xiisad ka dhalatay dilkaasi waxaana la sheegay in kooxihii ka dambeeyey dilka ay ka baxsadeen inkastoo ciidamada booliisku la sheegay in ay wadaan howlgal ku aadan sidii ay usoo qaban lahaayeen dadka dilka gudaha cisbitaalka uu geystay ruuxa dhaawacaha. mahadsanid cabdulaahi. iyadoo saacado ka hor ay dowladda Soomaaliya sheegtay in aan dalka laga rabin kana shaqayn karin wakiilka qaramada midoobay ayaa go'aankaasi waxa ka soo horjeestay Soomaaliland. Ilyas Cabdi Cali ayaa faafahinta warkan Hargeysa inooga soo diray. xukuumadda Soomaaliland ayaa la safatay safiirka Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay oo shalay dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in aanu joogi karin magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dalka Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo qoraal soo saartay waxa ay sheegtay oo ay ku ammaantay Nicholas Haysom inuu ahaa nin wax qabad badan isla markaana aanay Soomaaliland ku taageersanayn dowladda federaalka Soomaaliya inay ka caydhiso gudaha Soomaaliya. Soomaaliland waxa ay sheegtay in Nicholas Haysom uu ka shaqayn jiray nabadeynta geeska Afrika isla markaana ay dowladda Soomaaliya kaligeed ku tahay. go'aanka ay qaadatay xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay inay la shaqaynayso safiirkaasi qaramada midoobay u fadhiyay Soomaaliya. xukuumadda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shalay qoraal ay soo saartay waxa ay sheegtay in Nicholas Haysom uu ku xadgudbay sida uu joog lahaa Soomaaliya isla markaana faragelin ku haya siyaasadda Soomaaliya taasina ay keentay in aanu joogayn magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Soomaaliya. Ilyas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa. sidoo kale maamul goboleedyada ku haray golaha iskaashiga maamul goboleedyada ayaa iyaguna cambaareeyay go'aankaasi iyagoona ku tilmaamay mid qalad ahaa. dhinaca kale midowga Yurub ayaa si kulul u cambaareeyay hoobiyaal lagu weeraray xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho. waryaheena Maxamed Ibrahim ayaa faafahinta warkaasi noo haya. ergada midowga Yurub u joogta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay cambaareynayaan falal kasta oo ka dhanaa qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ah si gaar ah madaafiicdii shalay lagu weeraray xarunta Xalane gaar ahaan qaybta UN-ka ku shaqeynayay. qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee ergada Yurub ee Soomaaliya u joogta ayaa waxa lagu sheegay inay midnimo la garab taagan yihiin xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee ANSOM loo yaqaan isla markaana ay si isku mid ah u cambaareynayaan falalka colaadeed ee aan qiimaha lahayn ee looga soo horjeedo qaramada midoobay iyo xubnaha shaqaalaha ee ururada caalamiga ah. hadalkan ayaa imaanaya ka gadaal markii ay shaqaale ka tirsan qaramada midoobay iyo qof qandaraasle ah ku dhaawacmeen dhowr hoobiye oo al-shabaab la beegsatay dhismaha ay qaramada midoobay ku leeyihiin xerada Xalane ee magaalada tan Muqdisho. wasaaradda ganacsiga Soomaaliya ayaa dhisaysa xarun fududeysa adeega ganacsiga. Yunis Duraan Cali ayaa faafahinta warkan inoo haya. wasiirka ganacsiga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo ka hadlayay munaasabad lagu soo bandhigayay wixii u qabsoomay muddada sanadkii tagay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in ay ka wasaaradahan ku hulan yihiin sidii loo sameyn lahaa xarunta fududeynta adeegga ganacsiga dalka. wasiir Cabdi Xayir Maareeye ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay inay ka wasaaradahan ay wadaan sidii sanadka cusub ay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya xooga u saari lahayd dhoofinta kheyraadka ka soo go'a dalka. waxaanu dhisi doonaa insha Allahu tacaala oo noogu jiro qorshahaana la kala xisaabtamayaan sheegayo dhismaha xarunta fududeynta adeega ganacsiga oo halka ganacsatadu hadda laga yaabo inay number 4 u doontaan nootaayadii oo xamar weyne ku soo shubaan lacag bank oo halkan yimaadaan oo shati ka qaataan adeegaasan meel isugu geeyeen. sanadkan waxaanu xoojin doonaa annaka rugta ganacsigu xooga iyaga ee dawladdu isugu geeyeen sidii Soomaaliya wuxuu dhoofin lahaa malayga loo dhoofin lahaa mooska loo dhoofin lahaa Soomaaliyada la shirqoole marba meel laga soo xidho aynu ganacsiga aynu hadda miisaanku ina ka saarayay wax soo dejin inaan wax dhoofinta bad yoolka iyagu waa waxaan doonaynaa dhaqaalaha inaan balance ka dhigno oo furi lahaa. wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu qabtay galabta wasaaradda ganacsiga taa oo lagu soo bandhigayay wixii u qabsoomay wasaaradda muddada sanadkii tagay.
intay socotay munaasabada lagu soo bandhigayay wixii u qabsoomay muddada sanadkii tegay wasaaradda waxaa goobjoog ka ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xubno ka socday labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo shaqaalaha wasaaradda. dowladda Kenya ayaa sheegtay inay dileen ku dhawaad 10 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa faafahinta warkan inoo haya. ciidamada militariga Kenya ayaa sheegay in ayagoo kaashanaya ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ay howlgal ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya howlgalkaas oo ay ku beegsanayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Kenya waxa ay sheegtay in weerarka ay ku qaaday Al-Shabaab ay ku dileen 7 ka mid ah dagaalamayaashooda iyagoona intaasi sii raaciyay in tiro kale oo Al-Shabaab ay ka baxsadeen iyagoo dhaawac ah. Afhayeenka ciidamada xoogga Kenya ayaa sheegay in qaar ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay gaarsiiyeen dhaawacyo halis ah. Afhayeenka ciidamada xoogga Kenya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inta uu socday howlgalka ay ku bacsanayeen Al-Shabaab inay gacanta ku soo dhigeen 9 ka mid ah qoryihi Al-Shabaab siteen gaar ahaan nooca loo yaqaano AK-47 iyo 3 ka mid ah bambooyin gacmeedyo. Afhayeenku waxa uu sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan weerarada ay ku bacsanayaan Al-Shabaab si ayuu yiri loo adkeeyo amniga iyo xasiloonida Kenya iyo sidii howlgalka AMISOM aan uga caawin lahayn amni ku soo dabaalida Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa khatarta ugu weyn ee dowladda Kenya wajahayso markii loo eego dhanka amniga iyagoona Al-Shabaab weeraro ay dad badani ku dhintaan ka geysta gudaha Kenya. weli waxaan warkaabin radio kulmiye qodobada dibadda ayaa inoo soo socda balse markan duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano Air Djibouti